بسم الله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada dhegeystayaal qaybtii labaad ee barnaamijkeenii tiirarka qofka iyo qaranka hore qaybtii koobaad waxaynu ugu soo qaadanay inta badan waxaynu xooga ku saaranay kalsoonida qofka qaybtan labaad waxaynu kaga hadli doonaa haddii aan la idmo 4 tiir oo qofkana muhiim u ah qarankana muhiim u ah 4 tiir waxa weeyaan 1 caqliga cilmiga cuudka iyo cududa 4tuba qofka aadmiga ah waa muhiim qofku caqli kama maarmo haddaanu caqli lahayn waxay noqonaysaa qofkaasi qof aan ismaamuli karin oo khasab u baahanaya markaa in qaranku maamulo ama ehelkiisu maamulo macnaha bulshada kale inay maamusho haddii aanu cilmi lahayn waxay noqonaysaa in ummadda kale ee cilmiga leh uu hoos tago oo kuwaasi markaa ay hagaan haddii aanu cuud lahayn wuxuu noqonayaa qof aan isku filayn dhaqaale ahaan oo ay khasab tahay inuu ku tiirsado dadka kale si ay baahidiisa uga caawiyaan haddaanu cudud lahayn waa la mid oo isaguna hadduu yahay qof aan cudud lahayn awood lahayn waxay noqonaysaa markaa dadka kale inuu ku tiirsado si ay u taakuleeyaan oo ay waxyaabaha uu u baahan yahay ay ugu qabtaan haddaba qofku 4taa tiir hadduu haysto wuxuu haystaa 4 nimco oo waaweyn 4 nimco oo qiimo leh oo haddii uu uga faa'iidaysto si fiican markaa naftiisa uu wax ku tari karo isla markaana bulshada kalena wax ku tari karo waxaa qaran noqda awoodda qofafkaas oo la isku daray tusaale ahaan macnaha cududii bulshada oo dhan oo meel isugu timi caqligii bulshada oo dhan oo meel isugu yimi cuudkii bulshada oo dhan oo meel isugu yimi cilmigii bulshada oo dhan oo meel isugu yimi ayaa qaran noqon kara marka waxaa soo baxaysa awood qaran waxaa soo baxaya cilmi fara badan oo qaybo badan oo urursan oo hal meel laga hagayo waxaa soo baxaya cuud hanti urursan oo fara badan oo hal meel laga hagayo waxaa soo baxaya caqli fara badan oo kala duwan oo hal meel laga hagayo waxaa soo baxaysa cudud awood leh oo hal meel laga hagayo 4taa tiir ee qofku ku taagan yahay bay qarannimaduna ku taagan tahay 4taa tiir hadday qarannimada ka lumaan qarannimo ma jirayso 4taa tiir hadday qofnimada ka lumaanna qofku ma jirayo ama ma dhammaystira macnaha qaran aan dhaqaale lahayn ma dhammaystira ma socon karo qaran aan caqli urursan lahaynna ma socon karo qaran aan cudud lahaynna ma dhammaystira qaran aan cilmi lahaynna waa saasoo kale markaa 4taa tiir waa 4ta tiir ee qof iyo qaranba u baahan yihiin waa 4ta tiir ee loo baahan yahay markuu qofku doonayo inuu guul gaadho inuu 2 siyoodba uga fakiro 1 inuu ka fakiro inuu 4taa tiir ku anfaco naftiisa 2 inuu 4taa tiir ku anfaco bulshadiisa haddii uu naftiisa ku anfaco waxa uu nooleeyey xubin ka mid ah xubnihii qaranka haddii uu soo gudbiyo oo bulshada 4taba soo gaadhsiiyana waxa uu wax ku biiriyey awooddii dhaqaale awooddii cilmi awooddii cududeed caqli ee ummaddu lahayd sidaa daraaddeed guushu waxay ku jirtaa in qofku ka fekero naftiisa ka sokow waxa labaad ee qofku ka fekeraa waa inay noqoto dhismaha iyo wanaajinta danta guud ee qaranka waayo taas baa godolooladii qof ahaaneed iyo tii bulsho ahaaneedba taasaa burinaysa haddii
fekerka labaad ee qofku noqon waayo dhismaha qaranka oo uu ka fekero dhismo kooxeed ama dhismo qabiil iyo wax lamid ah weligii qarannimadiina halkaasay ku dumaysaa baahida qabiilka iyo baahida kooxda iyo wixii lamidi midna ma qabiyo tirmayo waayo waxa lagu qabiyo tiri karaa waxa weeyaanuun awood qaran marka waxaa mudan qofku inuu mudnaanta koowaad siiyo dhismaha qaranka si baahida kala duwan ee bulshada min qof qabiil ilaa qaran ay u daboolanto oo u dhammaystiranto qaran marka aan leenahay waxaynu uga jeednaa bulshada danta guud ee bulshada qaran la yidhaahdaa danta guud ee bulshada macnaha qarannimadu qof maaha ama xil maaha madaxweynenimo iyo wasiir iyo xilalkan magacyadii la sheegsheega maaha laakiin qarannimadu waa danta guud nidaamka guud ee ummadda haga danta guud ee ummadda jaangooya haga kaas baa qarannimo la yidhaahdaa marka qofku marka aad doonayso inaad horumar gaadho waa inaad ka fikirto in qarankaagu baylah la aado qarankaagu inuu afartaa ka dhisnaadood afartaa wuxuun kaga biirin karto haddii aad ka fikirto naftaadoo keliya waxaa kaa dayacmaysa qarannimadii marka qofku inuu laba siyoodu fikiro inuu naftiisana qabyo tiro qarannimadana qabyo tiro ayaa muhiima marka fariinteennu waxa weeyaan in qofku qof ahaan afartaa tiir inuu kobciyo ku dadaalo isla markaana haddii ilaahay u fududeeyo oo gacanta u geliyo afartaa nimco uu ka fekero qof ahaan inuu si wanaagsan uga faa'iidaysto oo ifkiisa iyo aakhiradiisaba anfacaysa mar labaadkana inuu ka fekero siduu afartaa tiir ugu dhisi lahaa qaranka oo aanu ka fekerin qabiil iyo meelo soke oo aan waxba isagana u taraynin qaranka iyo bulshadana waxba u taraynin casharkeenani fariinta gudbinaya waxa weeyaan inaan afartaa tiir ee qofkana u dana qarankana u dana inaynu fahanno oo ka faa'iidaysano inta aynu mar kale barnaamijkan isugu imanayno waa anigoo maxamed kayso idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jidka qoyska toosinta waalidka barbaarinta carruurta tiirarka farxadda tiirarka khilaafka tiirarka xalka iyo waxyaalo kaloo badan haddaba buugga jidka qoyska gurigaaga ha yaallo wixii oori wareertiyo odayaashii asqoobay markay buuggan arkaan asraarkii dhex yeeliyo umalkii kala weeshay haddii eebba idmo islaantuu ka bogsiinoo odayguu ka bogsiinoo ubadkuu ka bogsiine aqalkaaga ha yaallo buugga jidka qoyska haddaba wixii faahfaahin dheeraada kala xiriir taleefanada shaashada kaga muuqda